2020 doorasho ma ka dhici kartaa qof iyo cod gudaha Soomaaliya. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran ee u xilsaaran maamulidda iyo maareynta doorashooyinka Soomaaliya ayaa diyaar u ah in ay qabtaan doorasho qof iyo cod ah 16 bilood gudahooda. Hadda waa doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka dhacda oo ay ka qaybgalayaan 5 milyan oo qof. Guddiga waxa ay goob walba ku soo bandhigeen mas'uuliyiinta kala duwan iyo shacabkana tuseen shaqada ka socoto xarunta guddiga doorashooyinka qaran, waaxyada kala duwan sida sharciyada, wacyigelinta, howlgalka iyo sidoo kale maaliyadda, iyo in ay diyaar u yihiin dhammaan sharciyadii, qorshihii iyo tababaradii loo baahnaa, qaabka diiwaangelinta, qorshaha ololaha, goobaha codbixinta, xaqiijinta natiijada iyo xitaa tallaabooyinka doorashada kadib. haddaba daawadayaasheena ayaan u soo gudbinaynaa 10 shaqo ee ku tusinaya diyaargarowga guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran. 1. waaxyaha shaqada waaxyaha kala duwan. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran waxaa la qabtay 100% haddii ay tahay howlgalka, wacyigelinta iyo sharciyada. 2. wacyigelinta. Guddiga doorashooyinka waxa uu tagay oo bulsho iyo madax kala duwan kula kulmay 24 degmo, ugu yaraan 4 degmo ayuu ka tagay 5 dowlad goboleed. 100 kulan in ka badan ayay ahaayeen, isaga oo gudbiyey fariimo dhinac walba ah, cod dheerna ku sheegay in ay diyaar u yihiin qabashada doorashada qof iyo cod ee 2020. 3. goobaha doorashada. 1,005 goob ayaa la asteeyey ilaa hadda oo ka mid ah deegaanada Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeelle iyo Banaadir. waxaa kale oo socota Jubbaland iyadoo ay harsan tahay oo keliya Puntland. 4. nidaamka diiwaangelinta. Guddiga waxa uu go'aamiyey in nidaamka ku habboon diiwaangelinta uu yahay halka lagu magacaabo biometric. 5. diiwaangelinta. Guddiga doorashada waxa uu diiwaangeliyey waqtiga ay u baahan tahay bilowga diiwaangelinta codbixiyaasha ilaa bixinta kaararka. Dhammaan hawshaasi waxa ay ku qaadan doontaa 3 bil, iyaga oo xataa si wacan u qeexay diiwaangelinta kadib si xoog aruurin, kala soocid, soo bandhigid liiska horudhaca iyo sidoo kale qaybinta kaararka. 6. xeer nidaamiyaal. qaybtan waxaa ka mid ah wacyigelinta codbixiyaha, diiwaangelinta, maamulka xisbiyada, maaliyadda xisbiyada, maamulka doorashada, xalinta khilaafaadka doorashada iyo arrimo kale. 7. xeerka habdhaqanka. waxaa ka mid ah howlwadeennada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran, xisbiyada iyo murashaxiinta, saxaafadda, korjoogtada doorashada. 8. habraacyo. waxaa qayb ka ah midowga iyo sidoo kale isbahaysiga xisbiyada, dhismaha madasha, xog iswaraysiga iyo wadatashiga guddiga iyo xisbiyada. 9. maalgelinta doorashada 2020. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran iyo hay'adda doorashada ku shaqada leh waxa ay isla meel dhigeen lacagta doorashada 2020 ku bixayso oo gaaraysa ilaa 55 milyan oo dollar. 10. shaqaalaha guud ahaan. Shaqaalaha loogu talagalay in ay shaqada doorashada qabtaan bilow iyo dhammaad waa ilaa 5,000 oo shaqaale ah. haddaba iyada oo guddiga madaxa bannaan iyo doorashooyinka qaran diyaariyey wax walba oo dhankooda ah, ayaa waxaa jira caqabado iyaga ka baxsan oo la'aantooda ayna dhici karin doorashada la filayo 2020. 3 arrin oo doorashada ku horgidaaman ayaa kala ah. 1. sharciga doorashada. Sharciga oo muhiim u ah qabsoomidda doorashada 2020 waxa uu hadda hor yaallaa golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dadejinta sharcigan waxa ay sahli doontaa in si dhaqsi ah wax loo qabto. Sharciga waxa uu sidoo kale ku xiran yahay xeer nidaamiyaal, habdhaqanka iyo sidoo kale habraacyo muhiim u ah doorashada 2020. 2. amniga. goobaha doorashada 2020 ay ka dhacayso iyo dadka codeynaya waxay u baahan yihiin amni. qaar ayaa go'doonsan, taasi oo ay tahay in ay kala shaqeeyaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. waana in ciidamo gaar ah oo arrinkaasi loo xilsaaro la helo. haddii ay dhici weysana waa adkaan doontaa in doorasho qof iyo cod 2020 ka dhacda Soomaaliya. 3. heshiis siyaasadeed. waxaa dhibaato ka jirta nooca doorasho oo waxaa jira khilaaf xoogan oo siyaasadeed oo ku aadan midda la qaadanayo hal deegaan doorasho oo dalka dhan ah mise in lagu saleeyo dowlad goboleed.
taasi oo u baahan heshiis siyaasadeed, dastuurka amniga, xuduudaha iyo sidoo kale arrimo kale oo ay ku xiran yihiin heshiisyada ay gaaraan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. la'aantooda ma dhici karaan doorasho 2020. haddaba ma kula tahay doorasho qof iyo cod ah in 2020 ay ka dhici karto gudaha Soomaaliya?